Mustalifa ayaa lagu magacaabaa gabadhan waxay ka soo jeedaa dalka Itoobiya. Waxay haystaa diinta Islaamka. Mar qura ayay ilinta ceshan weysay kadib farxadda weyn ee gaartay maalinta. Mustalifa waxay ka mid tahay gabdhaha Islaamka ee ku nool waddanka Itoobiya. Markii ay dhammaysay gabagabada jaamacadda ee maalintii ugu dambeysay, waxay u soo baxday iridda hore ee bannaanka. Laakiin markay imaatay laamiga, durba waxay bilowday inay u sujuuddo Allihii dhowrkaas sano caafimaadka siiyey, isla markaana hadafka iyo hamiga sare ee guusha ay gaartay ka dambeeyay. Waxay noqotay mid dhif iyo naadir ah in dadka Islaamka ay ku baraarugaan maalinta ay gaaraan guusha inay isla markiiba xusaan Allah. Mustalifa waa gabar Islaam ah oo ka soo jeeda dalka Itoobiya. Isla durba laamiga bartamihiisa xilli ay marayeen gawaari halisna ay ugu jirta in la jiiro ayay ku dhex sujuudday bartamaha laamiga, isla markaana waxay Allah ka barisay uguna mahadcelisay guusha weyn oo gaarsiiyey maalinta gabagabada ee heerkeeda jaamacadda. 24kii saac ee ugu dambeysay social media guud ahaan maanta waxaa haysta sawiradan iyo muuqaaladan gabadhan lagu magacaabo Mustalifa oo ah gabar Islaam ah haysata diinteena Islaamka kuna nool dalka Itoobiya. Mar qura ayay hadaf muddo sanado badan ay soo waday dhammaysay, isla markaana aad ayay ugu mahadcelisay waalidiinta iyo saaxiibadii ay galaaska isla soo fadhiisan jireen gabagabada jaamacadda. Laakiin xasuusteeda ugu weyn ayaa ahayd in Allah ay mar qura u sujuudday una mahadcelisay awoodda uu siiyey iyo caafimaadkii dhammaystirnaa iyo dhowrkii sano ee ku dhammaynaysay barashada jaamacadda. Maalintan ayay u ahayd maalin kale oo qurux badan, isla markaana waxay gaartay hami sare oo guul ah. Inkastoo ay ka mid tahay dadka Islaamka, haddana aad ayaa loogu farxay maanta guusha ay soo gaartay gabadhan ku nool dalka Itoobiya haysatana diinta Islaamka, maadaama ay xaqiijisay guul ka mid ah guulaha aadamaha oo aadka u jecel yahay inuu gaaro. Fadlan aan ku dhiirigelino muuqaalkan oo like saar, subscribe-na dheh, kana mid noqo saaxiibada halkan ku xiran. Aan u soo tabino xogaha iyo xaqiiqooyinka 24kii saac ee ugu dambeeyay ka dhacay koonkan.